السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركله يانيغو عبد الولي محمد ومشهد كبرتان برشاد كمبيوتر كا يسيدو كله ملتي ميديا haddaba waa muuqaaladeeni oo inoo socotay kaasoon ku baranaynay barashada moobilka dhinaciisa sawir qaadida. haddaba qaybta ka horeysay waxaan ku baranay sida loo kontrolo qaybta sawirka markii aad qaadaysid. sidoo kale qaybtaana waxaan ku baran doonaa sida aad ku duubi lahayd moobilkaaga muuqaal alaala muuqaalkii aad u baahan tahay. haddaba waxa inoo hoos yaalo moobilkii aan rabnay inaan shaqada ka qabano. waxaan sidoo kale geysanay qaybta photoska ma ahan, waxaan geysanay qaybta videoska. videoska wuu ka duwan yahay dhinaca sawir qaadida. sababtoo ah videoska wuxuu ka dheer yahay dhinaca sawir qaadida marka la dhaho wuxuu leeyahay wax lagu magacaabo ratio. ratiogaas oo ah maxaad rabtaa inaad ku duubato. ma slow motion aad u rabtaa, ma 30 frame per second aad u rabtaa, ma 60 frame per second, ma 1080 maad ku rabtaa, ma 4K wax ku duubaysaa. dependent waxay ku xiran tahay baahida ee aad markaas qabto. waxaa halkan inoo yaala marka qaybta muuqaalka. sidoo kale waxaa inoo dooran marka FHD. waxaan u maleynaa casharadeeni hore ayaan kusoo aragnay oo tafaasiil dheeriya uma sii galeeno. saas darteeda marka muuqaalkan hadda duubayno waxaan ku duubaynaa 30 frame per second oo ah 1080. waxaan dooranaynaa marka sawirkii aan rabnay inaan muuqaalka ka duubno. halkan waxaa inoo yaalo waa kartoon yar oo aan ugu talagalnay in aan ku duubno muuqaalka, waayo awood waan u yeelan weynay intaan casharka ka sharxeyno qof inuu standard inoo galo. marka saas darteeda ayaa inagu kaliftay in aan meesha keensano alaab si aan ugu duubno muuqaalka idinkana iisoo gudbino. marka sidee marka ayaa muuqaalka loo duubi karaa? muuqaalka waxaa loo duubi karaa waxay tahay sidaan hore u soo aragnay waxaad kontroleysay fookaha iyo exposure-ka. kadalika kana qaabkaas oo kale ayaad u kontroli kartaa. okay, waxaan sameynaynaa marka waxaan rabaa inaan recordingka inta aanan bilaabin aan saxo fookaha iyo sidoo kale exposure-ka. waxaan imaanaynaa dhinaca mobilka. waxaan taabanayaa midka gadaale. markii aan taabto calaamadda qufulka ayaan ku loo gareynayaa. waxaa arkaysaa intii aan ku soo aragnay dhinaca sawirka mid lamida inaan ku arkeyno dhinaca videoska. iftiinka adigoo loo gareeyay iftiinka waad gaabin kartaa, sidoo kalena waad dheereyn kartaa. dependent sidaad adiga isdhihi karto wuu ku qurux badnaan karaa muuqaalkaaga. sidoo kale kan kore haddii aan taabto sidoo kalena aan loo gareeyo waxaa arkaysaa midka kore inuu sawirka muuqaalka uu nadiif yahay, kan dambena uu yahay bluur. waxaad dareemaysaa marka iftiinka haddaad u baahan tahay waad ku darsan kartaa, haddii aad u baahan tahayna waad ka jari kartaa. mar walba waxay ku xiran tahay baahida aad adigu qabto. markuu sida tan kuu kala dooran yahay ayaa keliya waxaad leedahay marka recording markaad dhahdid waxaad dareemaysaa inuu duubmaayo muuqaalkaaga. qaybta kore waxaad ka arkaysaa in uu kuu qabanayo waqtigaas oo ah xilliga duubita bilowday, inta daqiiqa uu duubayo ayuu wuxuu kaaga qorayaa qaybta kore. waxaa awood u leedahay marka adigoo duubayo inaad iftiinku yareyn karto ama aad badin karto. hadduu arkaysaa iftiinku waan badiyey, waxaa awood u leedahay iftiinka inaad yareyso. sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad kontroli karto fookaha adigoo markaas muuqaalka duubayo. inta badan waxaa dhacdo dadka professionalka oo kale waxaad dareemaysaa cinematiga oo kale. waxaa arkaysaa intaanan sharaxaada dheer aan sii galin. haddaba qaybtan waxaan ku qaadan doonaa sidee ayaa u sameyn kartaa cinematic focus wax lagu magacaabo. cinematic mode-ka waxaa ku sameyn kartaa sida soo socda. horta ugu horeyn waa inaad fahantaa waa maxay cinematic. cinematic waxaa la yiraahdaa in tusaalo laba qof oo ay kala dambeyso oo kale mid hore iyo mid dambe aad kala gelin karto foco. iyadoo meel dheer aan kugu sharxin waxaan isla imaanaynaa dhinaca mobilka. waxaa arkaysaa waxaan leeyahay muuqaalkan ayaa waxaan qabtay recording. waxaa arkaysaa marka muuqaalka inuu yahay recording, inuu inoo taagan yahay laba kartoon. kartoonka koowaad inuu yahay midka nadiifka ah, kartoonka labaadna inuu yahay midka fookaha ah. waxaan rabaa marka iyadoo duubista ay ii socoto inaan midka dambe aan saaro nadiif, midka horena aan fooka ka dhigo, aan isdhaafsiiyo. waxaan taabanayaa midka dambe. waxaa arkaysaa
inuu nadiif ii noqday cinematicana aan ka yara gaabsaday iftiinkiisa anigoonan aanan geenin shay kale ama wax kale mobilkaaga caadiga waad ku sameyn kartaa kaliya fookaha ayaad kala amraysaa iyo qaabka adiga isdhihi kartid wuu ku qurux badan yahay ayaad ku kala amraysaa sidoo kale haddii aan u baahanayna kan hore ayaan imaanayaa waxaa arkaysaa inuu sida kale ii taagan yahay sidoo kale asigana waan dooranayaa iftiinka ayaan yareynayaa muuqaalka adigoo duubaya ayaad awood u leedahay labada shay aad u baahan tahay midna inuu nadiif noqdo midna inuu fooka noqdo inaad kala hormarsiin kartid xilligii markaas dhihi karto baahideeda waa ay jirtaa ugu dambeyn wixii aad raadinaysay waa aad heshay fadlan waxaanu kaa codsanaynaa inaa inoo subscribe garayso channelka sidoo kale aad inoo like garayso muuqaalkan iyo muuqaalada kale hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaas soo dhigno anigu waxaan nahay qofkii ku baray adiguna waxaa noqon doontaa qofkii baran lahaa waa inoo iyo cashirkeena xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh